السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نبض عوضيال كسو هذا برنامج كاني فلنقينتا سياسة الصومالية إي قضبدي وقدنبي qodobada aynu maanta barnaamijkeena ku soo qaadan doono daawadayaal waxaa kamid ah madaxweynaha dowladda dalka Djibouti oo xaalad caafimaad dalka dibadiisa loogu qaaday. qodobka xigay inuu soo qaadan doono daawadayaal waxaa kamid ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo qorsheynaya in uu xilka ka qaado ra'iisul wasaare ku xigeenka dowladda federaalka Soomaaliya mudane Saalax Axmed Jaamac. qodobada arrimaha dibadda aynu soo qaadan doono daawadayaal waxaa kamid ah madaxweynaha dowladda Mareykanka Joe Biden oo la qorsheynayo in uu doorashada tartanka soo socda uu ka hadho. qodobada iyo qodobo kale ayaynu soo qaadan doonaa daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena daawadayaal. daawade haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee channelkeena soo booqato waxaanu kaa codsanaynaa inaad channelka subscribe saarto waayo anaga dhiirigelin ayaa inoo tahay daawadayaal. haddii aynu gudagalno barnaamijkeena maanta iyo wararkii ugu dambeeyay daawadayaal alaaba sida caadada warar aan si rasmi ah loo shaacin oo xagga dowladda Djibouti ka imaanaya ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele loo qaaday dalka Faransiiska siiba caasimadiisa dal Paris. warar aan ka helayo xogo ku xidhan Djibouti waxa ay sheegayaan in xaalad caafimaad oo hore loogu ogaa balse wax ku soo kordhay darteed aan ahayn sidaas darteed loogu qaaday dalka Faransiiska subaxnimadii hore maanta. wararka aanay dowladda Djibouti xaggeeda laga shaacin ayaa xoguhu sheegayaan in sanadkii 2016 laga helay madaxweynaha wadna xanuun. madaxweynahan oo ay hadda da'diisu tahay 77 jir oo ay u dheer tahay xaalado caafimaad oo uu la nool yahay hadda. ma jiro wax warkan faahfaahinaya hase ahaatee haddii ay jirto xaaladiisu waxa ay ku soo hagaagtay xilli uu aloosan yahay colaad siyaasadeed oo uu kula dagaalamayo jamhuuriyadda Somaliland isaga oo diidan in Itoobiya iyo dalka kale in ay aqoonsadaan jamhuuriyadda Somaliland. heshiiskan oo aan weli si rasmi ah loo saxiixin MOU-ga Itoobiya iyo Somaliland. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ayaa bilaha ay Djibouti u kulushahay waxa uu baxaa inta badan magaalooyinka Diridhaba oo halkii uu ku dhashay ama dalalka Yurub sida Faransiiska halkaas oo uu ku leeyahay hanti maguurta ah. sidaas awgeed lama hubo in wararka xaaladiisa caafimaad ay tahay mid sax ah. Ismaaciil Cumar Geele ayaa waxa uu dalka Djibouti xukumayay muddo dhan 25 sano waana madaxweynihii labaad ee dalka Djibouti ay yeelato muddadii xilligaas. muddada uu xorta ahaa dalkani ee 47 sanadooda. haddii ay tiisa noqoto lama hubo cidda bedelaysa laakiin waxaa jira warar xogogaal ah oo sheegaya in wiilkiisa ugu weyn carruurta uu isku diyaariyay in uu bedelo inkastoo aan la hubin sida reer Djibouti ay u aqbali doonaan maadaama ay qoyskani ku raageen xilka dalka oo ay hayeen muddo 47 sanadooda oo ay ka talinayeen hal qoys. qodobkeena xiga barnaamijkeena daawadayaal waxaa kamid ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa lagu soo waramayaa in uu isku diyaarinayo in uu xilka ka qaado ra'iisul wasaare ku xigeenkiisa dowladda federaalka Soomaaliya mudane Saalax Axmed Jaamac kaas oo hayb ahaan ka soo jeeda beelaha direed ee dega waqooyiga Soomaaliya gaar ahaan Somaliland. wararka xogogaalka ee la helay ayaa waxa ay sheegayaan in ra'iisul wasaare ku xigeenka iyo madax ay la kulmeen koox ka tirsan beesha raxan weyn laakiin ra'iisul wasaaruhu waxa la sheegayaa in uu ku qanciyay in uu Xasan Sheekh Maxamuud kursigan hore ugu ballan qaaday beesha raxan weyn kuwaas oo markii hore uu xeerarka iyaga dartoodu bedelay baarlamaanka uguna codeeyeen kana dalbadeen kursiga ay ku fadhiyaan reer Somaliland iyo xildhibaanada aan dalkooda tagi karin
xasan sheekh maxamuud ayaa mar labaad doonaya inuu baarlamaanka Soomaaliya xeer cusub uu geeyo isaga oo isku fuudhinaya kana raba inuu ka samaysto kuwaasoo baarlamaanka reeraha uu la wada ballamay raba in uu ballantii uu la galay uu fuliyo. xubno ka tirsan xildhibaano iyo dad kale ayaa waxaa la soo sheegayaa in ay la kulmeen ra'iisul wasaaraha iyaga oo ka kooban 50 xubnood. madaxweynaha ayaanay gurigiisa tageen waxaana loo sheegay in uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud seexday hadda saacaduna ay tahay 11 habeenimo. muddo ay fadhiyeen guriga gudihiisa waxa ay kala soo noqdeen faramadnaan. laakiin wararka aan helayno ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud ilo ku dhow ay sheegayaan in uu talo kula jiro in uu 2 ama 3 ra'iisul wasaare ku xigeen uu samayn doono Soomaaliya si uu u helo codka beesha raxan weyn oo uu markii hore u ballan qaaday in uu kursiisiyo. isku soo wada duubo arrintani waxay muujinaysaa in Somaliland la xaqiiqsaday inaanay mar dambe ku soo laabaneyn midnimada Soomaaliya. sidaas darteed dad aan Soomaaliya micno ugu fadhiin ayaa waxa ay ku darsadeen in ay kuraasta iska buuxiyaan oo kaliya, yacni waa xildhibaanada. qodobkeena ugu dambeeya barnaamijkeena daawadayaal haddii aynu soo qaadano waxaa kamid ah madaxweynaha dowladda Mareykanka Master Joe Biden ayaa waxaa la qorsheynayaa in uu xilka ka daadego xilka madaxnimo ee doorashada soo socota sanadkan dhici doonta bisha September. madaxweyne Joe Biden ayaa la filayaa in uu ku dhawaaqo inuu ka hadho tartanka doorashada soo socota ee November 2024 sida ilo ku dhow aqalka ay sheegayaan. Joe Biden oo xilliga doorashada da'diisu ay noqonayso 82 jir oo ahna madaxweynihii ugu da'da weynaa ee soo maray Mareykanka. tan iyo bishii June waxa isa soo taray cadaadis kaga imanaya mas'uuliyiinta xisbigiisa oo kula talinaya in tartanka uu ka hadho, iyadoo la tilmaamayo inay ka muuqdaan calaamado muujinaya culays dhinaca maskaxda ah. balse Joe Biden ayaa dhowr goor ku celceliyay in maskax ahaan uu caafimaad qabo oo uu dhaqaatiirtiisu ay u cadeeyeen oo aan waxba qabin. toddobaadkan ayaa mar kale la sheegay in Joe Biden laga helay xanuunka coronavirus.